jaaliyada dalka Ingiriiska jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Ingiriiska ayaa xaflad si weyn loogu taageerayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa lagu qabtay magaalada London. xafladani oo ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin waxgarad cuqaal iyo waliba qaybaha kala duwan ee shacabka ee reer UK ayaa waxaa duco iyo waliba bogaadinaya dardaaran la iskugu daray ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. u duceyno madax kasta oo dalka timaada caawa waxaan u taaganahay ra'iisul wasaaraha cusub ee Dr. Xamse Cabdi Barre inaan soo dhaweyno u duceyno. waxaan kaloo caawa u taaganahay inaan sagootino u duceyno ra'iisul wasaarihii horeeto oo xilka ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha cusub. waxaan isugu nimid meeshaan jaalid ahaan haddii aan nahay dadka degan Birmingham caawa inaan soo dhaweyno taageerno ra'iisul wasaare Xamse sida uu sheegay saaxiibka qaari wuxuu raacay in la sii sagootiyo ra'iisul wasaarihii hore Roble. taas waa waajib labadaba mid waa soo dhaweynayna mid waxaan leenahay soo dhawow. waxaan u mahadcelinayaa soona dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo aan aqoon dheer u leeyahay. waa nin diin ah diinta aqoon badan u leh. waa nin aqoon-yahan ah oo aqoon sare leh. waa nin ka soo shaqeeyay qaybaha kala duwan ee arrimaha bulshada ee Soomaaliya. ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waa nin aan si weyn u aqaano oo deegaanka gobolka Banaadir muddo badan ka soo shaqeeyay waxa ku soo bartay bulshada wax badan u soo qabtay. waxaan rajaynayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu fududeeyo mas'uuliyadda loo igmaday oo uu Soomaaliya u horseedo midnimo iyo dawlad saldhigta. sidoo kale waxaan halkaan rabaa inaan uga hambaliyeeyo oo u mahadnaqo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii isbedel muuqda ku tillaabsaday markaana aysan ka hoos bixin. marka ugu horeysa dhammaan inaan dadka Soomaaliyeed u hambaliyeeyo oo ugu hambaliyeeyo dawladda cusub ay marka ugu horeysa madaxda cusubna inaan u hambaliyeeyo. waxaan leeyahay hawsha weyn oo idin taal Ilaahay ha idin fududeeyo. taana ku xisaabtama insha Allah hambaliyan leeyahay ra'iisul wasaaraha inta kale waa ku darsaday. hore ra'iisul wasaaraha cusub xil baaft yaa ummadu ku saartay xil adag baa aad lagu saaray. xilka waxaanu ka baryaynaa inuu Ilaahay wadada toosan kugu aaminiyo sida heerka sare loo soo agaasimeyna caawa ka soo qayb galo. waxaan codkayga ku biirinayaa soo dhaweynta iyo taageerada ra'iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre. ra'iisul wasaare adiga isirkan ugu socdaa oo taageeradaadii dadka oo dhan ay u joogaan ka fikir inaan ku ducayno ducadii Allah naga aqbalay inaad dadka si cadaalad ah midnimo Soomaaliya inaad ugu shaqaysid.